هذا يبغى تاقفتان شركتني وحيقول كلام مراحلنا يما القبيل كلنا يجونا قالين تاسو كلا قاتانو برنامج كلا قوة مملة وإستجاب له من دل على خير فله مثل أجر فاعل نبي الله عليه الصلاة والسلام قفك وناس سنايا لقد قتيره وحول الله أنت كذا تأجر هذه الآن على يرانا نحن نقول أننا وحول كرسنا إنسان هوي إنه قفك الدين في سراعة سنة النبي قد قتيره أولاد في عن صار برشلة تاجرة هي قديمة وتقيم قاطع وحرتين يا أنا اللي كفلين أدون كيرنا هشان إذا نو برسلين يلا على هشان لكن وحول برسل إنسان أنت واحد وينو الدين يدويه حلال يدل اسمه يدل صوصاره فكتار استاسف في عنو قفاينينا فكتر وينو بعينينا أنا لقد إذا بين الله نهاي نقول أمر بوك السيادة اللي يرى ونوريا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللي يرى يوقفنا كريم فلا تقاره ليا هاي برسلو سلاسة إشي سيئة إبتي سبايا كمان تفيد أسفر بيان marka intaasaan ku soo gaarin lahaa waanaynu ku faraxsanahay waanaynu ducaynaynaa dhalinyaro idinkuna ku soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad uu mahadsan sheekh maxamed soqobar jiri wacdiga iyo tusaalooyinka iyo diinteenna islaamku waxay ka qabto guurarka dhalinyarada run ahaantii arrintanu waa arrin shirkadda Telesom ay ugu tala gashay inay ka taageerto ciddii ku guulaysata taageerada kharashka arooska agabka guriga kirada guriga iyo lixda bilood ugu horeeya biilka qoyska la dhisay inay intaa qaado masaariiftooda ama kharashkooda qaado ayay ugu tala gashay إن شاء الله بإذن الله الكريم ما نقول يستطيعون بميزتني أما دفعنا أنا عنوي مكان وطنا ما نقول يعني دفعنا وجود بيه لكن إن شاء الله هنسأل هاي وكم بلا في دول كيجا إن أنقار كلنا كمان أنا نرجع تيجو هذا يتهاي شركة هذا يتهاي شخصيات أي كنهاني نرجع تيجا وأنا بصي سؤاليا وعنوي عليا مارح سجال قوي هو ديبيوتي مانجر ديبيوتي اوبريشن مانجر الشركة تلسوم هل كان إنه أبراهيم برنامج كان إنه ما هو كدينه يو أو صوب ليه يا مصر باي صور هو باي هو يا صاحبي مو بدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. guud ahaan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala goobtan quruxda badan ee aynu doonayna inaynu reero islaama oo reer Somaliland aynu ku dhisno. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta kala duwan ee ay ugu horeeyaan xubnaha golaha wasiirada wasiirka isgaarsiinta Dr. Abdiweli wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil wasiirka wasaaradda isboortiga Boos Mire wasaaradda dastuurka iyo xiriirka gobolada Maxamed Xaaji Aadan wasaaradda qoyska iyo shaqo abuurka Hinda Gaani iyo maamadeena weyn Victoria Adna Aadan Astar waxaan kaloo mahadnaqayaa xildhibaanada iyaguna halkan fadhiya ee naga ajiibay inay nagala soo qayb galaan xafladan muhiimadeeda gaarka leh. waxaan u mahadnaqayaa culimada way u fadhiyaan culimadii ugu waaweyn Somaliland Allah barakeeye iyagana waan u mahadnaqaynaa ajiibida ay naga ajiibeen inay nagala soo qayb galaan xafladan saraakiisha ciidanka iyo dhammaan marti sharafka kale ee halkan horteeda ka soo fadhida iyo kuwa nagala socdaan live iyo tiifiyada nagala socdaan. ugu horreyn
waxaan rabaa inaan yara waadixiyo ama yara caddeeyo ama aan ka hadlo ujeeddada xafladatan iyo waxa aynu ka doonayn. xafladatani waa xaflad aanu doonayno shirkad ahaan Telesom in aanu bulshada dhaqankeedii iyo dhismaheedii aanu wax ugu kordhino. waa mid ka mid ah habdhaqankii shirkadda ay lahaan jirtay ee ay wax kaga qaban jirtay mujtamaca macaamiisha ah iyo kuwan macaamiisha u ahayn ee deegaankeena deganka. ma aha xafladani mid shirkaddu ay ku abuuraysay dhaqaalo. inayan dhaqaalo ku abuurayna waxay idin caddaynaysaa inaan hal shuruud oo shuruudaha arooskan ka mid ihi ayan ku jirin inaadaba wax naga iibsatid ama inaad wax ku shubatid mid aynan ku jirin, laakiin ay ahayd qof walba oo macmiil u ah shirkadda Telesom inuu jaaniskan xaq u leeyahay haddii uu buuxiyo shuruudaha ah inuusan hore u guursan, xaasna uusan lahayn ama xaas ama ayan dhil lahayn gabadh ama uusan wiilku gabadh uusan qabin. shuruudda koowaad ee aanu ku xidhnay waxay ahayd qofkaasi inuusan horena u guursan haddana uusan reer lahayn oo isla midkuu kelmadu waan malayna oo isla midkii. waxaad arkaysaa markaa in xafladda iyo hawshan aanu bilownay aynu uga jeedno inaan dhallinyaradeenna aynu ku caawinno kalana dagaalanno dhaqan xumada, waxyaabaha fasahaadka keenaya iyo waxyaabaha muxuu ahaayey inay xaaraan ku dhacaan ee nagu xumaan kala galaan allah inaga haye inaanu kala dagaalanno ayaa ujeeddadayadu ahay. waayo waxaanu qaban karaynay waxyaabo badan oo kale, laakiin waxaanu isnidhi mar walba annagoo u taagan mujtamaca dhismihiisa, akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa inaanu toosinno. wartana ayaa wax ka taraysa. meel qof bini aadana ka soo baxayo oo warshadii bini aadamka guurku waa meeniskii iyo waddadii loo mari jiray bini aadam inuu ilaahay ummadda adduunka keeno weeye. marka waxaanu isnidhi waa meeshii ugu mudnayd, waana meeshii maanta loogu baahi badnaa. arrintan waxaanu kaloo uga jeednay waxa loo yaqaano inaanu macaamiishayada annagoo awalba wax ku kordhin jirnay oo wax ku celin jirnay oo abaaraha iyo duufaanaha iyo dhibaatooyinka waddanka ka dhaca aanu mar walba qaybta koowaad ka qaadanno, haddana mar walba inaanu bulshada wax wada gaaraya oo kalena aanu mar walba gaar uga nimaadno ayay ka mid ahayd qodobada aanu u doorannay inaanu arrintan aynu fadhino samayno. waxaanu ku doorannay guurka waxaanu ku doorannay guurku waa arrin diimeed waana arrin dhaqan labadaba, laakiin waa arrin diimeed oo guurku sheekhu siduu inoo sheegay waa waajib. dhalinyarada yaa macshar al-shabaab oo nabi calaih salatu salaam uu yidhi guursada dhalinyarada intuu yeedhay uu kiinii awoodaa yidhi guursada iyada ayaa idiin ilaalin badan farjiga iyo muxuu ahaayey iyo ishabe. markaa annagoo taa ka duulayna ayaanu waxaan u doorannay dhaqanka bulshada iyo dhismaha qoys la dhisaa inuu bulshadana wax ku soo kordhin doono, fasahaadka iyo xumaanta iyo waxyaabaha kala dhacayo dhan laga hortegi karayo. waxaanu kaloo aanu uga jeednay dhiirigelin dhallinyaradu. waad ogtihiin guurkii meeshu marayo waa waxyaabaha haddeerto bulshadeennan aad hoos ugu dhacay. marka waxaanu doonaynaa arrintan inay dhallinyarada u noqoto dhiirigelin iyo muxuu ahaayey in la abuuro xiise guur iyo sheeko guur iyo muxuu ahaayey arrintan inay samayso raad ay mujtamacan ku yeeltay dhallinyarada ayaan doonaynaa haddii lahayd. arrinta tan aan maanta halkan u fadhinaa waa mas-uuliyad caam oo cid walba oo ilaahay caqli siiyey mas-uulna ka dhigay xil ka saaraya. bulshadeennu waxay u baahan tahay in wax laga bedelo. cid waliba door bay ku leedahay. doorka culimmada waxaan odhan lahaa anugu ama ka shirkad ahaan baanu soo jeedinaynaa in adawaad sharciga laga qabto arrintan guurka. beri dhawaad waxaan ka qayb galay xaflada aroos baan ka qayb galay waa lagu sheekaystay. nin weynu odayba wuxuu yidhi markii laga hadlay arrinta aynu ka hadlayno
guurkii hoos ugu dhacayo dhalinyaradii haddii ummadani guur weydo xumaan baa loo dhaqaaqayaa ayaa nin wuxuu yidhi nin baa kala shaqeeyey guur hargeysa wuxuu ku qaatay lacag $60,000 iyo ninkaa guurkiisa qofka reerkaa guurkiisa ku baxday oo ku hasbal ku baabaaday waxaynu u baahanahay culammadu inay ka hadasho arrintan waalidiinta iyo dadka guursanaya iyo dadka qurbaha inooga imanayaba inaan la fasahaadin guurka haddii guurku fasahaado oo ay guurku qaaligaa uu noqdo halkaa uu gaadho bulshadu guurkii way u yaraanaya kadibna waxa xumaantu waa badanaysa ganacsatadu door bay ku leedahay doorkay ganacsatada ku leedahay waa kaan biloona u kacnay waxaanu rajaynaa haddii ahaydno ganacsatada kale ee dadka laga waxsiiyey inay hawshan qaybtooda ka qaataan oo waddankeenna iyo dadkeenna waxay ku islaaxayaan innaga oo dhaqanka wanaagsan dhinaciisa u dugna isla markaana arrinta guurku bulshaduna way kordhinaysaa dhaqankana way hagaajinaysaa wax walba xunna waa lagaga fogaan karaya doorka saxaafadda waxaan odhan lahaa iyagana waxyaabo badan oo aan dadka macno badan u samaynayn ayaa intaa waxaanu samaynaa dhibayd iyo dood laga qabtaa oo tifiyada ka socda oo idaacadaha ka socda waxaan odhan lahaa dadka halabuur kale dadka waxgaradka ah salaadiinta iyo culummada dood cilmiyeed diini ah iyo dad dhaqanba ha loogu qabto tifiyada dadkana ha lagu baraarujiyo guurka iyo wanaaggiisu waxa uu yahay waxaan odhan lahaa doorka dowladda oo ah ka ugu muhiimsan waxaan idiin sheegayaa dadkay dhegaysanaya iyo dadka halkan fadhiya iyo madaxda halkan fadhidaba dadka bishan kura soo codsaday arrintan guurku 200,000 oo qof ayay gaadhay taasi waxay tusaale u tahay baahida loo qabo arrintan maanta aynu halkan u fadhino ayay macnad u samaynaysaa oo doonayaan fariintan ay gaadho cid walba oo mas-uula 200,000 ayay gaadhay dadka soo dalbaday bisha oo guurka in laga caawiyo oo ay ka jaaska helaan marka waxaan odhan lahaa doorka wasaaradda awqaafta diinta iyo awqaafta doorka wasaaradda haweenka iyo doorka wasaaradda muxuu ahaay qoyska iyo shaqaabuurka oo intay nagala joogo waxaan odhan lahaa inaad istaraatiijiyad gaara ka yeelataan arrintan tan maadaama ad aragteen arrintan istaajidkiis bay idiin noqonaysaa inaad meel ka qaadataan baahida guurku iyo meesha ugu soo gento waxaan kaloo odhan lahaa oo qaranka iyo dowladda iyo madaxweynaha waa ugu baaqi lahaa inaynu sanduuq arrin sugano dhalinyarada maadaama aynu arkayno baahidii heerkay marayso oo 200,000 oo qof ay soo dalbatay bisha dambana waxaa laga yaabaa in 200,000 oo qof soo dalbato haddana mar labaad marka waxaan odhan lahaa dowladdu war baytulmaalka oo waxbaada la dhigaaye aynu uga talagalno oo culammadu iyo wasiirada iyo dowladduba aan ka wada shaqayno annagu ganacsata ahaan waanu bilownay ganacsatada kale waan ku dhiirigelaynaa arrintaasi waa arrin khayri ah waa arrin min addiin ah nin walba ha ogaado waa arrin min addiin ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi barnaamijkeena hore ugu sii soconaynaa waxaan halkan ku weynayaa iminka marwaadna aadan ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرويني مدنيال المودينك مدنياش كسر قولياش قرنك وأن سكر وسلام اليوم مرو كندكاني وزيرك قيسك iyo arrimaha bulshada iyo shaqada wasiirka kaliya xawalaya ee nala fadhiya si gaar ah u salaamaya hooyo waxaan aad iyo aad u salaamaya oo aad u amaanaya oo aan aad ugu mahadnaqaya madaxda ka socota shirkadda Telesom shirkadda Telesom ma aha markii ugu horeysay arrin khayr ay ku dhaqaaqdo
arrin bulshada wax taraya ay ku dhaqaaqdo markii hawle la soo kulanto ee bulshada waxtar u ah sida guurka dhallinyaradeenna oo kale caafimaadka waxbarashada horumarka dalkeenna kaalinta koowaad bay ka gashaa Telesom waan ammaanaya waan ugu mahadnaqaya anoo ku hadlaya afka bulshada iyo ummadda Soomaaliland waxaan doonayaa dhallinyaroy maanta wax wanaagsan baa halkan laynoogu keenay 20 ka mid ah dhallinyarada wiil iyo gabdho ayaa la siinayaa fursad ay ku helaan jahaysad u suuro geliya hamigii noloshooda ee ahaa ee qoys samaystaan mid heli doonta garan mayno laakiinse midii ilaahay siiyo ee ilaahay ku beero ee magaceeda ku soo saaro waynu u wada ducaynaynaa soo maaha ma wada ducaynaa maxaynu ugu ducaynaa khayr farxad gobol khayr qaba inay isku waaraan soo maaha waxaan kaloo ku ducaynaynaa in inta kale maanta jahaysada heli weyday inay iyaguna yoolka ay helaan waxaa bishaarada lay sheegay waxa weeye tirada maanta jahaysada helaysaa nasiibkooda waa 30 maaha 20 waa 30 weeye ilaahay xataa abaalmarin tirada Telesom waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa nabadda ilaahayna siiyey waxaan garanayaa garoonka maanta aynu joognay quruxda badan ee dalka cagaaran la dhigay maalintii hubka lagu wareejinayay dagaaladii sokeeye maantana waa taa dhalinyarada waaye halkaan u fadhino hub ma jiro farxad baynu maanta ayaynu abaabulaynaa waxaan doonayaa dhallinyaroy yaan waddankeena lagugu darin yaan dalkaana Somaliland lagugu darin soo Somaliland ma wada difaacno ma wada difaacnaa yay la difaacayaan ilaahay bayna la difaacayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin hooyo waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا إسماعيل فؤاد مدرسة العاديات نفسي أروح سوريا وأنا بدونيها سوريا عبد العزيز محمد جماعة هي من عبد العزيز صوص صدق بوليس أي كتو بعدو maanta 12 warqadii horeeyay ayaa maanta su'aalaha kale way ku xigi doonaan afkada waxaynu ku dhigi doonaa 12 horeeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وإن أوديت الشرفت له وسيرنا لقاسمياشا نحن الشركة إسكارسية عصر جاية تلصم مرت الشرفنا حوينها نغيرنا صحافتها نماتي وحن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب فرحة وين بيتها يماتي أنا كسو قيب قلو حفلة بلان بقران lagu taageerayo dhalinyaro dhisi doonta guryo ka mid ah guryaha islaamka waa arrin wanaagsan runtii shirkadda Telesom oo aan arrintan u sameynay arrimo badan oo kale oo wanaagsan qaranka iyo dadkaba u qabata runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ugu ducaynayaa shirkadda in ilaahay maalka u barakeeyo ganacsiga u barakeeyo beeraha مسلم كا إيه سيانا